banaanbaxani ballaaran oo looga soo horjeeday xariga Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Mayfair magaalada tani Johannesburg. Dadka dhigay banaanbaxani ayaa watay boorar ay ku sawirnaayeen wadaadka Sheekh Xasan Daahir Aweys isla markaana ku dhawaaqay hadallo lid ku ah xariga Xasan Daahir Aweys ayagoo ka dalbanayay dawladda in si degdeg ah lagu soo daayo wadaadka isla mar ahaantaana dawladda ay oofiso balantii hore ula gashay odayaasha beeshaasi. Banaanbaxan ayaa dadku waxay ku dalbanayeen in la sii daayo Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ah hogaamiye diimeed iminka gacanta ugu jira hay'adda nabad sugidda ee dawladda federaalka Soomaaliya. Dadkii goobta banaanbaxa ka sameeyay ayaa warbaahinta la hadlay. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd. waxaan cambaaraynaynaa dawladda uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud. waa dawlad maxmiyada, waa dawlad aan ballan iyo axdi midna lahayn. waxaan ka soo horjeednaa xabsigii loo taxaabay Xasan Daahir Aweys. waxaan ka soo horjeednaa odayaashii Soomaaliyeed ee la jir dilay. waxaan cambaaraynaynaa ciidankan oo sugidda oo jir dilay odayaashii Soomaaliyeed, boqorrada ahaa, salaadiinta ahaa, indhergaradkii iyo culimaadudiinkii iyo salaadiintii, dadkii aadka u qiimaha badnaa oo dadka Soomaaliyeed u dhaxdooda tixgelinta weyn ku lahaa, dadkii jirkidilka u geystaan cambaaraynaynaa. sidaas oo kale waxaan cambaaraynaynaa xadgudubka loo geysta sheekha caanka ah 70 jirka ah oo la dulmiyey oo la xiray oo gaalada loo gacan geliyay. arrintaas shariicada islaamka iyo caqliga saliimka intaba xaraam ku ah. waxaan leenahay si sharciya oo degdeg ah u sii daayo xornimadii Xasan Daahir hasiyo. Xasan Daahir ma oo soo qabsan, waxa lagu keenay wada hadal ayaa lagu keenay wadanka odayaal keenay sooma oo qabsan waa inuu xornimadiisii soo celiyo. waxaan ka hadlayaa dhibaatada ka dhacday dalka Soomaaliya, Muqdisho, Jubbooyinka iyo Soomaaliya oo dhan. waxaan xasuusan ka hadlayaa Fast1 dhibaatada loo geystay ummadda Soomaaliyeed ee reer Muqdisho oo odayaashii iyo suldaamadii iyo boqorradii iyo ugaasiyadii iyo culimaadudiinkii lagu dhibaataynayo Xasan Daahir Aweys. waxaan kale oo ka hadlayaa dhibaatada loo geystay ummadda reer Jubbooyinka, dhibaatada loo geystay oo ay u geysteen ciidamada Kenya. madaxweynaha dalka Soomaaliya ayadoo dad oo ajnabi oo gacanta u galiyay aadayaan u cabanaynaa gaala ayuu gacanta u qof islaam oo soo dhibay. si kastaba ha ahaatee banaanbaxani waxa uu daba socdaa banaanbax maalnimadii shalay ahayd ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo looga soo horjeeday xariga wadaadka Xasan Daahir Aweys. Maxamed Xasan Ibrahim Matka, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Koonfur Afrika.